بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا إستر جانال كحران soo dhawaada dhammaantiin adduunweynaha meel kastood naga daawanaysaan soo dhawaada janaalkeena asxaabey soo qaata maaragtay kuraastiina iyo biyihiina iyo shaaxiina waa waqtigii aan idinla wadaagi jirnay dhacdooyinka adduunka ka dhaca dhacdadani asxaabey waa dhacdo maaragtay aad iyo aad u xanuun badan oo ku dhacday reer muslimiin ah waxay qisadani ka dhacday wadanka Mareykanka gobolka Kentucky markuu sanadku ahaa 2015 ee dhacday qisadan meelo badan baa laga soo daayay newsyada meelo fara badan baa laga soo daayay qisadan waxay ku dhacday wiil la dhaho magaciisa Salaaxudiin wuxuu ahaa wiil yar oo 22 jir ah wuxuu ka shaqeyn jiray pizza meesha pizza lagu sameeyo habeenada kamida asagoo pizza deliver gareynaya oo pizza qof u geynaya ayaa waxaa dhacday wiil yar oo isaguna African American oo madow ah baa wiilkan isku dayay inuu dhaco oo midhaa wuxuu isiri kolay lacagtii pizzada iyo wuxuu soo aroorinayay buu wadaaye ka dhac buu isiri marka qadar baa ku dhacday wuxuu la soo baxay bastoolad wiilkii wuu dilay Salaaxudiin ahaa qow baa lagaga siiyay Salaaxudiin miskiinka uu shaqaysanayay pizza deliver gareynayay wana ka naftiisii buu ku waayay sidaa dhibka yar marka waxaa dhacday aabihii Salaaxudiin aabihiis oo Dr. Abdul la dhaho wuxuu ahaa nin islaam ah oo ma aragtay maasha Allah aad iyo aad iimaan u leh oo iimaankiisu ma aragtay oo qof iimaan leh buu ahaa wuxuu sameeyay marka maalintii maxkamadda wiilkan yar iyo wiilka yar ee wiilka dilay ee Salaaxudiin dilay iyo Salaaxudiin aabihii markii maxkamadda la is hor keenay Salaaxudiin aabihiis ayaa hadlay marka wuxuu wiilkii yaraa ku yiri adiga kuuma cadeysni buu dhahay kugumana xanaaqsani waxaan ka xanaaqsanahay uu dhahay oo aad aan uga xanaaqsanahay shaydaankii kugu diragti gareeyay ama kugu riday jidkan foosha xun ee aad samaysay ee kuu geystay inaad aniga wiilkaygii disho ayaan ka xanaaqsanahay waayo hadduuna shaydaanku kuma aragtay ku duufsan lahayn oo uuna wadadan xun kugu ridi lahayn maba aadan samayseen waxaad samaysay ma aragtay meeshii waxa ka dhacday emotional baa la wada noqday xataa judge-ka emotional noqday oo wax judge gareynayay waxaa dhacday marka Salaaxudiin aabihii oo Dr. Abdul wuxuu sameeyay wuxuu soo wiilkii uu kacay wiilkii yaraabuu gacanta ka salaamay kadib buu hag siiyay imagine ka waran qof ma aragtay dilay ilmahaagii oo aad intaad maxkamadda dhex istaagtay aad ku leedahay adiga kuguma xanaaqsaniye shaydaankii misleadka kugu sameeyay ee wadada xun kugu tilmaamay baan ku xanaaqsanahay aad ku leedahay bal ka waran subxaanallah wallaahi wuu cafiyay maxkamadda dhexdeedii buu ku cafiyay marka wuxuu sameeyay hag buu siiyay wiilkii hooyadii aad bay ma aragtay u oyday iyaduna ee wiilka wax dilay dhashay waxay tiri ma aragtay ma ka filanaynin inay tiri inuu cafiyo oo ma aragtay uu hagsiyo uu cafiyo ma ka filanaynin inay dhahday ninkan ma aragtay Dr. Abdul wuxuu tusinayay dadkan ma aragtay ii sheeg cafiska ma aragtay fiicnidiisa iyo islaamnimada fiicnideedu tusinayay marka sidii buu ku cafiyay oo uu ma aragtay ku cafiyay wiilkii dilay wiilkiisa wuxuu dhahay Salaaxudiin haddii uu maanta noolaan lahaa waan ogahay dhahay inuu ku cafin lahaa Salaaxudiin hooyadiina oo ma aragtay waan ogahay dhahay inay ku cafin lahayd haday maanta nooshahay isaguna wiilka la dilay hooyadiina waxay dhimatay sanad iyo bar ka hor intaan isaga la dilin kansar ku dhacay iyadana way dhimatay marka wuxuu dhahay waan ogahay dhahay labadooduba inay ku cafin lahaayeen maanta haday nool yihiin laakiin anaa noolo maanta ku cafinaya oo waxaan kugu cafinayaana waxaan inaadan adigu sameynina inuu shaydaan ku duufsaday oo shaydaan ma aragtay kula tagay ayaan kugu cafinayaa buu dhahay oo aan ogahay hadii uu shaydaankaasi ku duufsan lahayn
inaadanba samayn lahayn dilkan. sidiibuu wiilkii yaraa ku cafiyey ninkii Dr. Cabduul. marka waxaa la sameeyey 35 sana lagu xukumay oo dhaci uu geystay iyo maaragtay iyo dilkii dee haddii uusan cafin lahayn life in prison lagu xukumi lahaa weligii inuu ku jiro maxkamadda xabsiga laakiin hadda waxaa lagu cafiyey ii sheeg qofkii uu qofka ka dilay baa cafiyey marka waa loo soo gaabiyey waqtigii 31 sana lagu xukumay inuu ku jiro xabsiga ama prisonka. marka cafiska macnihiisu ka sheekeynayay waxaan markaan aan daawanayay waxa u soo qorayay dad baa message u soo qoray sheekhan dhakhtarkan oo Dr. Cabduul oo Salaaxudiin aabihiis ah. marka nin baa wuxuu ku yiri waxaan aad ola dhacay message-ka uu soo qoray wuxuu ku yiri in badan baan waxaan ahaa buu yiri qof ma aragtay depression iyo dhibaato haysato oo diin aan haysanin oo meel uu u socdo iyo meel uu ka socdo midna aan aqoonin. wuxuu dhahay markaan daawaduu dhahay wiilkaaga dilay cafiska aad u fidisay iyo naxariista oo u gashay ayaan waxaan aan qaatay u dhahay oo aan maaragtay ku qaatay inaan maaragtay diinta islaamka aan qaato. waayo wuxuu dhahay diinta sidaa u macaan oo aa haysatid oo qofkii qofkaaga dilay aad cafisay ood maaragtay cafiska siduu u fiican yahay aadna tusisay ana waxaan maaragtay go-aan ku gaaray uu dhahay inaan qaato diintaas. marka dad badan baa marka kusoo islaamay markay daawadeen videogaas oo maaragtay uu maxkamadda ku dhex cafiyey wiilkiisa dilay ku dhex cafiyey. dad badan baa maaragtay cafiska inuu siduu u fiican yahay dareemay iyo naxariista maaragtay uu u galay. marka dad badanaa kusoo islaamay oo maaragtay islaamnimada ku qaatay. maasha allah maaragtay wallaahi aniga xataa aad iyo aada oo la dhacay waxa waaye cafiska. maasha allah cafiska waa wax fiican hala iswada cafiyo insha allah. bishii barakaysnayd baa nagu soo foodle cafiskuna waa muhiim. ilaahay ha naga dhigo kuwii maaragtay iscafiya oo maaragtay qof ay wax u geysteen iyo ku aan wax u geysaninba cafiya. hala iswada cafiyo insha allah anakoo dadkana cafiyeen anaguna aan cafinay. ilaahay maaragtay adduunkan naga oofsado maalintay taanada tahay anagoo qofna waxba noo haysanin anakuna aanan qofna waxba u haysanin. marka asxaabey qisadan waa qiso cajiib ah aad baan maaragtay kuley aniga aan oga helay maaragtay siduu u cafiyey wiilkaas wiilkiisa dilay. macnaha waa waalid oo maaragtay dee waa xanuunkii wuu la noolaana oo wiilkiisii la dilay laakiin haddana cafiskaas waa very important wallaahi aad bay muhiim u tahay. qisadii asxaabey halkaasaan ayay inoogu xiran tahay insha allah. cafiyo musaamax baan idinka wada dalbanayaa kulligiina idinkana cafiyo musaamax baa tihiin. waxaan idin leeyahay aan isku naxariisano ilaahay si uu inoogu naxariisto. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.